wafdi ay hogaaminayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. wafdiga ayaa kormeer ku maray dugsiga farsamada gacanta ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ayagoona uga sii tallaabay jaamacadda caalamiga ah ee Gedo. wafdigana ayaa ballanqaadyo u sameeyay dugsiga farsamada gacanta ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan kuwaasoo isugu jiray in ardayda la siin doono deeqo waxbarasho iyo in la ictiraafi doono shahaadada dugsigan iyo sidoo kale in laga kaabi doono dhismaha dugsigani. wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale ballanqaad u sameysay bahda waxbarashada ee degmada Balad Xaawo in laga kaabi doono waxbarashada aasaasiga iyo sidoo kale tan saraba. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay dhisi doonto dugsi sare kaasoo ku saleysan manhajka Soomaaliya isla markaana ardayda reer Balad Xaawo ay ka qayb gali doonaan imtixaanaadka qaranka ee sanadkani.